ilhaan cumar ayaa laga saaray guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada dalka Mareykanka. xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada dalka Mareykanka ayaa u codeeyay inay ilhaan cumar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda. xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta u codeeyay inay ilhaan cumar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda ayaga oo ku eedeeyay hadallo ka dhan ah Israa'iil. talaabadan ayaa sii xumaanaysa xiisadda labada xisbi kadib markii dimuqraadiga ay kala fadhigii hore guddiyo ka saareen xubno jamhuuri ah oo ka tirsan garabka midig ee fog kuwaas oo lagu eedeeyay hadallo rabshado hurin kara. afhayeenka aqalka hoose Kevin McCarthy ayaa ku guuleystay inuu mideeyo jamhuuriga si guddiga laga saaro ilhaan oo asal ahaan Soomaali ah kadib markii xubnaha qaarkood ay ka muujiyeen shaki in xildhibaano laga saaro guddiga aqalka ayaa ahayd waxaan hore u dhicin ilaa dimuqraadiga ee 2 sano ka hor u codeeyeen inay ka saaraan Marjorie Taylor Greene oo laga soo doortay Georgia iyo Paul Kreuzer oo ka yimid Arizona kuwaas oo kamid ah xubnaha jamhuuriga ee midigta fog. codeynta maanta oo ahayd 218 ilaa 211 oo labada dhinac ay kala mareen safafkooda ayaa timid kadib dood dheer oo dimuqraadiga ay ku eedeeyeen jamhuuriga inay ilhaan ku beegsanayaan isirkeeda darteed. ilhaan ayaa iska difaacday aqalka ayada oo weydiisay haddii ay jirto cid la yaabtay in la beegsaday sababtoo ah marka aad awooddaada riixdo awoodda dib ayuu kuu soo riixaa. codkayga wuxuu noqon doonaa mid intaa ka sii dheer kana sii xoog badan isla markaana hogaankayga waxa uu dabaaldegi doonaa dunida oo dhan ayay ilhaan ku soo xirtay khudbadeeda. jamhuuriga ayaa diiradda saaray 6 hadal oo ilhaan ay hore u tiri kuwaas oo xaaladaha caadiga ah u diidaya inay ka mid noqoto guddiga arrimaha dibadda. waxaa sidaas yiri xildhibaan Michael Cassidy oo ah jamhuuri laga soo doortay Mississippi. hogaamiyaha dimuqraadiga ah Kim Charles oo laga soo doortay New York ayaa sheegay in ilhaan ay mararka qaar samaysay qaladaad ayna adeegsatay hadallo yuhuud naceeb ah oo la cambaareeyay 4 sano ka hor balse taasi ma ahan waxa codeynta maanta ay ku sabsaneed ayuu yiri. ma ahan isla xisaabtan waa argudasho siyaasadeed ayuu yiri Charles. xildhibaan Alexandria Ocasio-Cortez ayaa tallaabo dheeri ah qaaday ayada oo sheegtay in tallaabada jamhuuriga ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha laga yaqsiyoodo ayada oo ula jeeda weeraradii Sebtembar 2011 beegsiga iyo cunsuriyiinta ka dhanka muslimiinta dalka Mareykanka oo idil. tani waa mid ka mid ah dhaxalkaas. waxay intaasi ku dartay tani waa beegsiga haweenka midabka. ilhaan ayaa ah mid ka mid ah labadii gabdhood ee ugu horeeyay ee muslimiin ah ee loo doorto Congress-ka dalka Mareykanka.